bismillahi raxmaan raxiim awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhowaada ciyaarihii ugu dambeeyey ee la ciyaaray. wax walboo laga dhahay finaalkii Spain laga qaaday Ingiriiska oo mar kale ku guuleystay Euro 2025 asigoo hore u qaaday 2022 taariikh noocee ayay ka dhigan tahay. macalimada hogaamisa Ingiriiska afartii sano ugu dambeysay saddex ka mid ayay qaaday. waa tay macalimadaas sidoo kale Spain markaan waa laga aarsaday Leo wax walboo laga dhahay Ingole kaantaha gabdhaha xulka qaranka Ingiriiska inaba caadi maahan. xidigta markay bedel ku soo gashay ayay ciyaarta dhan furfurantay. waa tuma ciyaaryahanadaas laba xidig oo ka tirsan xulka qaranka gabdhaha Ingiriiska oo ku guuleystay Championskii hablaha iyo Championskii Euro 2025 ee hablaha loo qabtay. labadii tartan Yurub laga dhigay ee hablaha loo dhigay sanadkan waa ay ku guuleysteen ayaa leeyahay. sidoo kale maxaa laga dhahay ka degistii Joe Felix uu ka degay Sacuudi Carabiya. sidoo kale Pep Guardiola wax laga weydiiyey Cristiano Ronaldo oo isku diyaarinaya seasonka soo socda maadaama naadiga loo dhisay. wax walba ugu baahan tahay insha Allah waa kaaga rogi doonaa. kusoo dhawaad janaalka subscribe noo saar like dhasiin share gare waa kaaga mahadcelina daawashada muuqaalkan. kusoo dhawaada saaxiibayaal janaalkeena kusoo dhawaada hadduu kugu cusub yahay subscribe noo saar mar kale ku leeyahay asxaabta la wadaag wararkii ugu dambeeyay ee sportska Euro 2025 oo hablaha loo qabanay oo markaan la soo gabagabeeyay asigoo meel xiisa la gaaray. Ingiriiska iyo Spain ayaa isku dhagay inkoo kulan weyn dheel xalay ilaa heer extra time ilaa penalty la gaaray. kulanka hal ayuu ku dhamaaday. ciyaarto Spain ku haysato ayaa xidig ka tirsan xulka qaranka Ingiriiska bedel ku soo gashay numberka 18aad wadatay. wacdar ayay ka dhigtay wax walba ay ku sameysay inaadi xidigtaasna inaba caadi ma waxa leeyahay Euro 2022 goolka guusha koobka loo qaaday ay dhalisay. xalana waxay ka talisay in extra time la aado final la aado kadib haddana ay noqoto xidigta ugu dambeysay rigoorada guusha ee dhaliso. marka inaba caadi ma waa la soo dhibay xidigtaas marka rigoor ay ku qaadeen xulka qaranka Ingiriiska. amaano dhan waxa la leeyahay macalimada xulka qaranka Ingiriiska oo afartii san la soo dhaafay saddex kamid ah guuleystay. mar holna u qaadaa leeyahay marna waxa leeyahay 2022 isla Ingiriiskana u qaaday haatan 2025 waxa u qaadaa leeyahay isla Ingiriiska. wax walba marka Ingiriiska waa ay ka arsadeen leeyahay xulka qaranka Spain hablihii ayaa u aarguday wiilasha ogeen 2024 inay gooldaro ka qaateen 2 gool ah xulka qaranka Spain ragooda haatan waa laga aaray ayaa leeyahay. sidoo kale Ingole kaantaha gabdhaha xulka qaranka Ingiriiska oo asigana wacdar dhigay. xidigtan ayaa lagu soo waramayaa in 2 kulan oo cajiib leh hore u soo qaadatay. xalayna waali ahayd waxaan loo doortay da'yarkii ugu fiicnaa tartanka 19 jir u dhashay xulka qaranka Ingiriiska walow ciidayna iska tahay Afrikaan. marka waa ka xulka Ingiriiska ayaanu ku guuleystay ugu dambeyn Euro 2025. marka inaba caadi maahan waa halis ay geliyeen Spain waa ay fiicnaayeen laakiin maxay kaaga taalaa marba hadii extra la aado xulka fiicnaa waa la cunaa la shaka waay. marka 8 Abriil ayaa safataa leeyahay safashadiisa ugu horeysay safata da'yarta xal ku guuleystay da'yarta sanadka halka 2025 Julayna tartankii ku guuleysatay iyo da'yarkii sanadka. wax walba marka waxay noqdeen aabeeda garoonka joogay oo si diiran min bilaa ilaa dhamaad ula socday xaaladeeda. sidoo kale labadan xidig ayaa noqdeen labadii xidig ugu horeysay ee ku guuleysato tartan Yurub iyo Champions League iyo Euro la dhigo. marka Euro iyo Champions League ay isku qaadeen waan laba xidig ka tirsan hal naadi waa naadi kubadda cagta Arsenal. inaba caadi maahan ayaa leeyahay. Joe Felix oo ka degay markaan Sacuudi Carabiya asigoo madaxafka Cristiano Ronaldo booqanayo soo fiiri biladii Ballon d'Or-kii wixii dhan ninka Omo Shoray wuxuu qabsaday oo waaya. sidoo kale marka waxa leeyahay Marcus Rashford ayaa asigana ammaan kala dulacay. Hansi Flick kan rajeynaa in boos joogto oo ka helo iyo xil ciyaareed fiican. marka 30 daqiiqo ayuu dheelay welina wuxuu rabaa inuu boos fiican oo dheelo. marka waan arki doonaa walow oosan xumeyn goolkii uu Rooney dhalinay ciyaaryahankii saddexaad soo taabto ahaa
asaa usoo gadiyey Lewandowski ayaa ninkaas ka caawiyey marka waxaa leeyahay Rashford maska xumeyn laakiin waxaa leeyahay ciyaar la fiiri karo ma aan midaas sidoo kale waxaa ka mid Jose Pep Guardiola mar waxa laga weydiiyey kulaabashada Barcelona wuxuu dhahay waqti fiican waa soo qaadanay waqtigaasna waa ahaaday haatan maya way soo dhamaadeen sidoo kale warag waxaa ka mid Thibaut Courtois oo u hibiyey waqtigiisa naadiga kubadda cagta Real Madrid sida mar waxa laga weydiiyey uu qandaraas cusub inuu saxiix rajeynayo ayuu dhahay waxa ahaa doona ciyaaryahan ku fadhiisto hadiiba aa fadhiisanayo Real Madrid ayaa kawa iska siibi doona ayuu leeyahay marka Courtois oo u hadiyay ayaa leeyahay waqtigiisa Cristiano Ronaldo oo isku diyaarin xoog leh sameynayo asigoo la arkay asigoo xeebaha emails ku dagaalamayo tababar joogta iyo mid gooniba ku sameynayo marka ninkan season ka soo socda horyaalkiisa ugu horeeyay Saudi Pro League inuu qaado Joe Felix aan loo keenay ciyaartoy badan waa loo soo wadaa macallin cusub loo keenay waa arki doonaa Al Hilal iyo Ittihad Al Ahli iyo Sobaga ugu dhaco marka Yogeris ayaa asigana si diiran ugu la hadlay taageerayaasha kubadda cagta Arsenal asigoo dhahay wax walba gool ah sanadkan ani idaaya inaba caadi maahan wax walba ana ni keenayo tartiibkiina marka Bukayo Saka la arkay asoo labadooda si fiican u sheekaysto isku daay ay dhanka caawinta iga saacid way arintan marka Alexander Isak oo asigana markaan qarka u saaran inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Liverpool sida ka tagista Luis Diaz oo ka tagay naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa ka saacidi doonto in uu ku soo biiro xiise waali ayuu hore ugu helay haatan waxa leeyahay markaan heshiiskaas in la dedejiyo ayaa la rajeynaa maadaama lacag ay ka heleen Diaz lacag kale inay ku daraan la hortagaan Newcastle Alexander Isak to Liverpool son insha Allah intaas ay ku soo gabagabeynayna muuqaalka xiga noo balan subscribe like share no caawi ina gaarno 700 qof subscribe-ersa mahadsanidin